دولي شيخ أحمد وهركع عيو سوركي صورتي إذا كان بغضو وحنا كنا نصور دوينا سيو كلا ومجعينا أفكينا أن كسر دوينا يا دكتور عبد الرحمن معلم عبد الله باديو وأصلا وفدي كمد وحنا نصور دوينا يا بروفيسور علي حريد وزيركي عافمادك دولة فدرالك وقتي عبدولي أصلا الله صعده وحنا نصور دوينا يا قدومي قبل كمدو محمد يوسف جامع وأصلا مرتدى كمد عبد البر جبريل حلبانك أصلا سيو كنا نصور دوينا إسماعيل بلداجي إسماعيل بلداجي ياسين أصلا نصور دوينا وكمد مريه جامعة مقدشة كمد أصلا حنكون نصور دوينا دمان waxaan soo dhaweynaa munadamaadka dawliga iyo kuwa maxalliga ee naga soo qayb galay shirkan weyn amba xafladan quruxda badan waxaan soo dhaweynayaa odayaasha dhaqanka martida noo waalidiinta jaamacadda dariska la awlaadoodana dhigato nala joogto barsoorada jaamacadda macallimiinta jaamacadda dhammaan maamulka jaamacadda cadaadiisa kala duwan ardada horteeda fadhisa labada gelinba jaamacadda muqdisho maanta u timid inay la soo dhaweeyaan wafdiga horkacayo ra'iisul wasaaraha dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay halkaan nala fadhiyo madax ka soo noqotay maamul goboleedka Puntland ee aad taqaanaan magacyadooda in badan magarasa ka maqasheen idaacadaha iyo telefishinada waxa weeyaan waa Maxamed Yuusuf Jaamac Tigi oo magaranaysa nima taqaanaan ku soo dhawow mikrofoonka kelmadaada iyo magaranaysa مدين وعلى آله وأصحابه أجمعين marka ugu horeysa waxaan salaamayaa wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Muqdisho iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad bay farxad noogu tahay kulankan qiimaha badan iyo warshadan qiimaha badan oo midda ay Soomaali maanta ugu baahi badan tahay kaadir dhalinyaro oo aqoon-yahana warshad soo saaraysa inaan soo booqano midda xigta madaxda iyo mas'uuliyiintan hadalka badan u daynaya ummad walba mustaqbalkeedu wuxuu ku xiran yahay dhalinyaradeeda ummadii dhalinyaradeedu wanaagsanaata ayaa mustaqbalkeedu wanaagsanaada ummadii dhalinyaradeedu xumaatana mustaqbalkeedu waa xumaataa dhalinyaro taa ina guntantaan dhalinyaradii wanaagsanaatay waa idinka kuwa burcadbadeeda noqday kuwa dagaalka sokeeya ka qayb qaatay kuwa darbiyada fadhiya kuwa daroogada iyo qaadka iyo khamrada iyo ay dileen waa kuwii ina ka xumaaday iyagana inaad badbaadisaan dalkana inaad badbaadisaan idinka in leedinka dhowraya inaad ogaataan waxaan wax yar idinka tilmaamayaa taariikhdii ummadda Soomaaliyeed 5,000 oo sano ilaa la aqoonsan yahay ayaa ummaddan Soomaaliyeed la aqoonsan yahay markii boqortooyadii masaarida ee Xadsabshuud iyo faraacinadii ay uduga ka qaadan jireen Soomaaliya intii ka dambeysay badmareennadii iyo dadkii Soomaalida mari jiray wixii ay ka qoreen wax wanaagsan bay dhammaantood ahaayeen isticmaalku markuu yimid Soomaaliya adduunka dadkii ugu sareeyay ee isticmaalka diida ayay ahaayeen Soomaaliya waxay dalkii ugu horeeyay diyaarada lagu weeraray sida quwadaha shisheeye loola dagaalamo halgadkii uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Allah u naxariiste suugaantiisii waxa ka mid ahayd dalka malihid aniga ku iri doora weynaha dalkan ana iskale buu yiri gaal ma oran ingiriisna ma oran oo marka lagu tilmaamay boqortooyada aan qorraxda u dhicin doora weynaha ayuu ku yiri sida uu la dagaalamay iyo guushii uu ka gaarayna waxay ahayd inay Soomaaliya taariikhda baalka dahabka adduunyada ay ka gasho maamulka iyo horumarka bulshada dalkii ugu horeeyay ee Afrika waxaanu ahayn madaxweyne intuu tartamo waxa weeye xukunka inta si dimuqraadiya looga guuleysto si nabad intuu ku wareejiyo si nabad iyo sharaf leh oo dalkiisa ugu noolaado madaxweyne aadan cadde naxariista janna Allah siiye Afrika quwadii ugu weyneyd waxa weeyaan dalal badan oo Afrikaana xuquuqdooda raadinaysay halganka iyo gobonnimadoonka ku taageeraysay xorriyadda gaarsiisay xuquuqda inta dulman u dagaalanta ayaynu ahayn هاي أفريقيا هرودوي هاليجادي هرودوي هما لسارة هرودوي هاي سيديسا هرودوي له جامينايا كوا أنو لهين كونفور أفريقيا يجوه الرئيسي تذكرني سيدا يوقعلن وادركتان لأن يروي مركب مستقبل كدلك إذنكو إذن سجيا أوجادا مستقبل كوحكو سجيا قفل بعض لأن يرى إنه يسقون نفتي سدسه نفط هذا إن هذا وناجسد مركز هذا غير كوناجين كذا إنه هنكاغو سرّيو أو سيدي تذكرني هو هنكود أسرّيي إنه أسرّيو دلك أنه واو كفاي taariikh dahabi oo lahaa inay kiciyaan inta la rabo waa intiinaan iyo inta la midka waxa lagu kicin karaa dalkana waxa weeye qofku inuu isagu xor yahay inaad xor ka tahay waxa la wixii Soomaali meesha dhigay qabyaalad baa ugu horeysa halgankii idinka horeeyay ee dhalinyaradii Soomaaliyeed markii ay halgamayeen SYL waxay ahayn asaaska waxa uu ahayn qabyaalada lagu xoroobo
nin odaya ayaa noo sheekeeyey wuxuu yidhi markii gaalkacyo la aasaasay ururkii SYL 43 ayaan annagoo ka nimid baadiyahaas mudug hoose jiriiban soonaheeda oo awr noo raran tahay ayaa waxaa naga hor yimid nin gaalkacyo ka yimid waa markii ugu horreysay ee Somali Youth Club la aasaasay intaan Somali Youth League oo SYL loo bedelin waxaan ku niri war meeshii gaalkacyo ahayd ka waran wuxuu yidhi war meeshii niman cusub oo dhalinyaro ah baa qabsaday oo kulub la yiraahdo kulub waa kalaab waxa ay doonayaan maxay tahay buu yidhi waxay doonayaan buu yidhi dalka Soomaaliya inay Talyaaniga ka xoreeyaan oo dawlad u dhisaan dadkaas aragtidoodu soo u sareeyay dhuuxa dhalinyaroy wuxuu ku yiri buu yiri ninkiina waday oo ma awoodda iyo hubka iyo Talyaanigu dhaqaalaha iyo hubka uu leeyahay hub la mid ah ayay haystaan ma awood dhaqaalana ma haystaan buu yiri hubna ma haystaan laakiin niman waxay ahaayeen niyadoodu sareyso dadkii oo dhanna waa ay ka haysteen 17 sano ayay hadafkoodii ku xaqiijiyeen dalkan inay xorrimo gaarsiiyaan waxa haysataan ma haysan digriga jaamacadeed oo aad haysataan ma haysan horumarkan iyo tiknoolajiyadan iyo internetkan iyo gawaaridan iyo waxaan oo dhan ma aysan haysan laakiin sida ninka reer miyiga uu sheegay niman niyadoodu sareyso ayay ahaayeen dhalinyaro marka inuu niyadiinu sareyso dalka waxa hadda ka tahriiba oo dhibaatada badan ugu sameeyo waxaan idin xasuusinayaa waa dhalinyarada wax baratay waa aqoon-yahankii dalka waa kuwii dugsiyada sare ka baxay waa kuwii jaamacadaha ka baxay aan isweydiinay maxaa dalkiina uga tageysaan dalkan dal aan ahayn yeelan mayno mana lihin haddaan u qaxno aynu dhalasho ka qaadanno hadday carruur inoo ku dhalato haddaynu gabdha ka guursanno hadday gabnaheedna guursadaan mar walba Soomaali baad ahaanaysaa dalkan hodanka oo geeska Afrika Ilaahay kugu beeray qof walba dalkaaga joog shaqo qof walba adaa abuuran kara qofka faculty-ga baratay iyo cilmiga baratay kaliya inaad xafiis ka raadisid maaha xafiisyada waxa laga qaataa waxa weeyaan waa waxaan qiimo lahayn noloshaada waa inaad abuurtaa waxaan tusaale idinku siinayaa maamul la yiraahdo Faadumo Jibriil oo aad wada garanaysaan madaxa hay'adda adeesa oo anayaan dhaweyd meesha ay ka degan tahay Puntland oo durduro la yiraahdo ugu tagay 64 bay jaamacad Mareykanka u aaday aabahayna waxay tiri 48 ayuu dalka Soomaaliya ka baxay oo Mareykanka iyo Yurub ku noolaa marka ay Cabdullaahi Ciise Maxamuud iyo waxay tiri ay xorriyadda United Nations u tagayaan dadkii soo dhaweyn jiray oo Soomaaliyeed buu ka mid ahaa noloshayda intaan soo maray waxa ugu qiimo badan midaan hadda haysta bay tiri beer bay halka ka falatay 500 oo geed oo timira waa ugu yaala sanadkii waxaan kaga xisaabtamayaa bitir $50,000 iyo wax ka badan inaan samaysto marka dhalinyaro shaqada idinka la rabaa inaan abuurdaan mid badeena ka kalluumaysta mid beerihiisa fasha mid meherad samaysta mid ganacsada mid aqoontii uu bartay ku shaqeeya intaba marka inaynu dalkeena dhisno oo aynu badbaadino siyaasadda madaxda iga waaweyn baan u daynayaa laakiin qofka insaanka oo dhalinyarada inuu xor yahay waa laga maarmaan inuu koox diineed xor ka yahay inuu qabiil xor ka yahay inuu aragtidiisu ay xor u tahay inaynu ka xorowno wixii qabiilkaygu jeclaadaan jeclaanaya wixii qabiilkaygu nabcaada waa nabcaanaya wixii qabiilkaygu mucaarada waa mucaaradaya wixii qabiilkaygu taageero waa taageeraya ama wixii kooxdaydu jeclaata waa jeclaanaya wixii kooxdaydu mucaarada waa mucaaradaya waxa wanaagsan inaynu taageerno waxa xunna inaynu diidno waxa wanaagsan inaynu waxa weeyaan isugu heelino waxa xunna inagu inaynu la dirno aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya runtii iyo marti sharafta kale ee ra'iisul wasaaraha wehelisa dhammaan ardayda ka soo qaybgalayaasha waa idin salaamaya ma dheeraynayo oo runtii maanta hadda sacabka iyo soo dhaweynta waa wax aan caadi ahayn weeye markii wafdiga la socday baa waxaan ku yiri tolo wafdiga madaxiisa dib ku jira ma ka mid ah marka aad baan runtii ugu faraxsanahay soo dhaweynta iyo quruxda iyo bilicda jaamacadda ka muuqata roolkaygu uun maadaama rayidka bulshada aynu nahay waxaan aad ugu riyaaqsannahay mas-uuliyiinta ihtimaamka iyo runtii ahamiyadda ay siinayaan mu'asasaadka waxbarashada iyo ardayda maanta waa maalintii xaq aad u lahaydeen oo aad su'aalaha weydiin lahaydeen siyaasiyiinta idin hor fadhida dabcan waxaa ka mid ah siyaasiyiinta idin hor fadhida xildhibaan Cabdibarre Jibriil oo garanaysaan iyo marti sharaf kale markii intaas ayaan ku soo koobayaa waa soo dhaweynaynaa wafdiga soo dhawaada mar labaad bar saddexaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u maafiyahay mudane Cabdiraxmaan Cabdisaaq insha Allah taala waxaan soo dhaweynaynaa بروفيسور الأستاذ عبد الرحمن معلم عبد الله باديو العالمين وصلى الله وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحاء إسكالا قوابتان أو كهضلية أو سؤال ويدين إيسان ده قال لي هذا برامج رئيس عبدولي الشيخ أحمد وفدقه قامنية
muddo dheer waad og tihiinoo waxaan ka soo shaqayhayna tacliin iyo arrimo bulsho marka muddo la soo waday waxaa soo baxday meel Soomaali ay ka bugto oo cudur xoog badan uu ka hayo ood wada og tihiin kulligiinna laakiin dad badan ay ka baqayaan oo aan rabna meeshaas in la isugu tago maanta oo dagaal madaysan lagu qaado meeshaas waxaa waaye meesha nabigeena calayhi salaatu wasalaam أو حديث في سكويري ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله مضغة بس أيا أنك نجا فسهاد سن هدان صومالنا مضغة دي مركا فسهادنا شركي نبى فسهادي لا حالو ما فسد الجسد كله وحافظ هذا طقنكي وحافظ هذا إسلام ماذا يفهم كذي وحافظ هذا أخلاق دي ومضى فسهادي وضا جركي بفسهادي وحكستو ومضى جريتان كذا هيا فسهادي أرنتها سنو وحاوة ماشي وقصر رئيس ذلك oo madaxda sare ee qaranka oo fikirka iyo hoggaanka qaranka laga raba ayaa naga fasahaaday waxaan ognahay shacbiga Soomaaliyeed guulala taaba kan uu soo gooyay amba ganacsi ha ahaato amba soo isku kaalmaysan ha ahaato amba tacliinta ha ahaatee laakiin ilaa hadda waxaan ku fashilanahay siyaasadda waan ku fashilanahay waxaan ku fashilanahay qarnimadii si wada jiraan u soo celino 25 sano marayna 25 sano ka bacdi marka su'aasha marka meesha taala waxa waaye waa inaan isugu tagnaa cudurkana haya oo ah inaan saxno xukunka iyo talada in la saxo xukunka iyo talada in la saxo marka halkaas waaye halka marka annaga halkaan hawshaan iskugu nimaday aan qayladhaanteeda wadno aan rabna dhalinyarada iyo odayaasha iyo culimada iyo dumarka iyo gabdhahayna inaan dhammaan loo kala harin oo bal aan goobino goobi waa taqaani Soomaa beerta waa la goobiyaa waa la isugu tagaa waxaan rabnaa inaan loo kala harinaa rabnaa arrintaas waa marka maanta arrinta aan ka hadlayno waxa la wixii waana ah dhalinyarada waxaa sheegay gobernatoorihii mudug hadalkiisa hadal ka fiican oo la sheegi lahaa mala marka waana dambe looma noqonayo calaacalna looma baahna kelimada calaacalkana waa la joojinayaa saas haddii la yeeri lahaa waxaan kaloo loo baahnayn saas maad yeeshinna looma baahna waxaa laba waxaan wada samayn karayno oo ruux kasta ka qayb qaadanayo oo ruux kasta maxaan qabanaa leeyahay waxaa la rabaa ficil wada jir ah iyo talo wada jir ah ayaan ka hadlaynaa oo Soomaali u baahan tahay muddo 10 sano 20 sano 5 sano ka badan ayaan calaacal ku jirnay oo dadka loo tilmaamayay anaga naseexan soo jeedan naseexadiina haysta idinku isku akhriya qof kasta naftiisa ha naseexay waxaan ka hadlaynaa maxaa la qabanayaa iyo sidee loo qabanayaa iyo waxa jira maxay yihiin su'aalahaas jawaabtooda ayaan rabnaa in laga qayb qaato marka waxa ila tahay waxaan aad iyo aad raaligelo uga bixinayaa odayaasha halkaan fadhiyo kaleeto saxaabadka ugu ugu badani marka Prime Ministerka Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa waxaan ku soo dhaweynayaa aniga wafdiga kamid ah magaca jaamacadda Muqdisho waxaan dhahaa Prime Minister soo dhawow waxaan ku hormarayaa cubaasha iyo balbaadiyaasha iyo madaxda dhinaca fadhida iyo ardaydan sharafta leh gabdho iyo wiilalba oo fadhigan aadka u qurxoon isugu timid dhammaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii ولو عبد الرحمن ولد عكالي جاء هذا مقدشة يونيفرسيتي وهذا يا مركا انت كلي وفدي انا مقعود كو هلايه يا waxa farxad iyo reen noo ah inaan maanta idin la kulanno ardaydan sharafta leh oo ah mustaqbalkii iyo iftiinkii iyo rajadii ummadda Soomaaliyeed runtii dhaawac baan gaaray Soomaaliya dhaawac baan gaaray waxaan u malaynayaa mar 30 sano ku dhow yaan sidaan oo kale ahaa oo halkaan oo kale fadhiyi jiray quruxda Soomaaliya waa soo martay
laakiin waan burburnay waan dhiig baxnay waan dhaawacnay dhimashaan ku dhowaano ama ku dhowno wajiyadan wiilasha iyo gabdhaha halkan ka muuqda ayaa runtiina dhaawac tiri doona oo rajada inoo soo celin doona waxaad noqon doontaan dadka caafimaadkeenna bedela oo bulshadeenna ka dhiga bulsho caafimaad qabta oo qofkii xanuunsada dawo siiya waxaad noqon doontaan dadkii beddelayay dhaqaalaheenna oo dhaqaale xumada iyo fakhrigana haysta naga saara waxaad noqonaysaan dadka bulshadeenna isku soo celiya ee kala qoqobantay ee kala burburtay oo masaalaxada agdhiga waxaan u malaynayaa qolo badanoo social science-ka dhigata oo social scientists noqon doonta inay idinku jirto waxaad noqon doontaan kulliyadda siyaasaddana waa ku jirtaa baan malaynayaa madaxda Soomaaliya oo dalkan ka dhiga dal la mid ah caalamka ka dhiga runtii rajada aan qabno isbeddel Soomaaliya inuu ka dhaco waa idinka weeye xaqiiqi marka ilaahay baa mahadle marka koobaad ilaahay baa mahadle ilaahaygi suurto geliyey intaan shalayta waxaan booqannay jaamacadda East African booqannay imtixaan bay ku jireen fasalladii baan ugu tagnay waxaan aragnay gabdho iyo wiilal imtixaankii qorahayo oo heerar kala duwan ah marka ilaahay baa mahadle suurto geliyey East Africa University inay jirto Mogadishu University inay jirto Boosaaso University inay jirto qolo kale الرالي مقدم مقعد يا خبرين وحا مهدلي وفنتي إن لو مهدلي أي تهي أذكر أبو مهدي السنة نقول أنا مهدلينا مدحرة الدولة يا مامورك puntland oo suurtageliyay nabadan iyo jawigan aad wax ku baranaysaan kuwa badan oo idin la mid ah oo Soomaali ah yaan arintaas siisan marka iyagana runtii aad iyo aad baa yaan ugu mahadcelinaynaa iyadoo aan ka soo bilaabayno aysan ahayn xukuumadda hadda jirtay Cabdiweli Cali Gaas saaxiibkii hogaaminaya kaliya aysan ahayn ka soo bilaabanaysa ilaahay iyo Cabdullaahi Yuusuf عدم موسى مدحونا فرولة إلى مدحونا هذا الجورة هي حكومة دي وزير هذه يدك كشقينا هي إن أمن اللي هلو إن يحبر الشر وهالشفدي كوكورت هالشر وحن هذينا حكومة السياد السي وضياش دقة كاد السي سلاطين وحاد السي مركا ما هالدوران أيجوا مقرصة فهمت لأن أيجوا هديسن استاجن وإيسن المعمول بانربنا كان وحبرش يأمني يلقالي يهرمر مسؤول بين فرد جماعة التقرف أبدا وعنه الحلم وعنه السجون بالهلكة وحنو ملانا يا هذا الكأنتي سبدا وحنو لقنا يا سؤاله أنا كجواب دوناني يا صاحب لي لأن هو أنا قرنا أرضيه إنه يحوي ديسيج عشاء هو حلوش يا جماعة لكن حجر بان أورانيا محل ذكر بعدك واجب بعد السارة واجب حدك السارين يوت النفتي نكو هذا صفي عن خبرتان شغات اللسان خيرات ديالنا إنسان أرتنا تاكوها ميدانه كوها مسانه مستقبلنا ديالنا إنسان واجب حدك السارية دتكنا يدلكنا إن أدو أدكتان ومال قلنته إيو أفرت إذن قالي أتسوق لسان
dadkiina iyo dalkiinana waa Soomaaliya Soomaaliya oo dhan baad u adeegaysaan ma aha kaliya Boosaaso ma adeegaysaan Soomaaliya oo dhan baad u adeegaysaan soo sidaa ma aha marka dadka hadda naga dhageysanaya Baydhabo iyo meel walba ardayda dhulka joogtana halkaan ay u adeegayaan adigu Soomaaliya oo dhan baad u adeegaysaan marka Soomaaliya waa hal soo sidaa ma aha واجب marka waajibkaasi aad gudataan hadda tacliintii iyo naftiina nagala tahriibtaan oo meel kale aad qabataan hadda maalgelintii leedin maalgeliyay iyo abaalka lidinka sugaayay wuxuu noqonayaa mid meesha ka baxa marka ku fakara waa leedinku soo dhibooday inaad dhibootaan oo dadkiina iyo dalkiina aad u hiilisaan ku fakara midaas midda haydi kala weynaato inaad naftiina kaliya u danaysaan haydi kala weynaato leanna dalkan waa laga dhigi karaa dalalka aynu u tahriibayno oo aynu aadayno waa laga dhigi karaa wax laaleeyo wax dalalka yaalla ilaahay waa nasiib baddaas quruxda badan buu nasiiyay waliba ka fiican meelo badan ka fiican cimiladan aanu gu iyo jilaal iyo wax beeran karo oo aanan u baahnayn dhar iyo kabad iyo inaan isa saaro yaa ilaahayna siiyey diin aanu ku midaysannahay iyo hidde iyo dhaqan iyo farac aanu ku midaysannahay haddaanu Soomaali nahay yaa ilaahayna siiyey marka haddaynu gacmaha isqabsanno oo aynu dhinac kaliya u wada shaqeyno oo dalka ilaahay aan aamino oo dalkeena aan aamino waa dalkeena waa ka dhigi karnaa dalka adduunka ugu quruxda badan waa ka dhigi karnaa marka aanu ku fakarno Soomaaliya inay noqoto dalka ugu quruxda badan adduunkeena dalka dhaqaale ahaan u horumarsan inay noqoto dalka dadkeedu caafimaadka ugu badan uu helo inuu noqdo dalka dimuqraadiyadda iyo qof kastoo muwaadin inuu dareemo qofka maamulaya iyo qofka xukumaya isaga inuu ka dambeeyo oo isagu dooranayo inaan noqono ma fiicanta inaan sida ku fakaro marka midaas aynu ku fakaro xoogga la rabo inay dhaqaajiyaan waxaasna waa dhalinyaradu waa ka firfircoon tahay waa ka maskax badan tahay waa ka aqoon badan tahay dadkeenii hore marka arintaas inaad ku fakartaan waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa waxbarashadu waxay ka bilaabataa dugsiyada hoose markaad dhisto waa inaad ka fakartaa dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe markay dhammaadaan in jaamacad la helo ay u gudbaan oo inta doorata inay tacliin sare oo adinkoo kale ah inay hesho haddana tacliintii waa in shaqo lagu helaa tacliintu waxtarkeedu ma weynaanahay haddaan shaqo la helin marka waxaa la doonayaa in la helo duruufihii saamaxayay inaad shaqooyinka aad u baahan tihiin aad heshaan adinka iyo inta kale idinla midka ah ee Soomaaliya meelaheeda kala duwan jooga si taa loo helo waa in amni la helaa si taa loo helo waa in maamul fiican la helaa si taa loo helo waa in deganaansho iyo awood maalgelintu ku timaado waa in la helaa oo warshaduhu ku dhismaan aad ka shaqayn lahaydeen oo aad maamuli lahaydeen oo ay timaadaa isbitaaladii aad maamuli lahaydeen oo aad ka shaqayn lahaydeen oo ay timaadaa bacmushtarkii iyo businesskii aad hogaamin lahaydeen oo adduunka aad la wadaagi lahaydeen waxaasoo dhan iska imaan maayaan waxay ku imaanayaan dowladnimo iyo maamul wanaag jira halkaas weeye marka meesha isaga xirmayso noloshiina iyo inaad eegtaan oo ka qayb qaadataan in isbedel dalkeena burburka ka saara uu dhaco waxaan u malaynayaa hadalkii
professor cabdiraxmaan uu jeeday halkaas ayay ahayd niman waxaa la yidhi salaadda aan ku fiicnayn laakiin lo badan lahaa yaa qola waxay rabtay inay salaadda inay tukadaan ay u sheegaan waxay yidhaahdeen markaa waxay ku yidhaahdeen ilmo julaasow alla aqoon ha u tukanina sicihinna u tukada sicihinna u tukada marka howlaha ah in wax walba la hagaajiyo siyaasadda la hagaajiyo maamulka la hagaajiyo waxa weeyaan waa inaad ka qayb qaadataan waxaad uga qayb qaadanaysaan in mustaqbalkiinu usan meel cidlo ah ku soo dhicin innagu wax yar baan dhaanay waxaa jiray arday badan ama dad badan oo ka baxay jaamacaadka Soomaaliya iyo kuwa dibadda ahba sagaashamaadka oo markii ay u diyaar garoobayeen inay shaqooyin iyo helaan dalkii uu burburay oo marka 30 sano la soo dhaafay ku lumiyay qurbo iyo qaxooti xataa shahaadooyinkooda la aqoonsan waayay oo qaarkood kuwii fiicnaa ay kow ka bilaabeen jaamacadda ay soo dhameeyeen ay kow ka bilaabeen marka horumarku inuu socdo waxay u baahan tahay dawlad fadhida dawlad ma fadhida dawladnimada aan ka hadlayna midda Puntland ma aha waa midda Soomaaliya weeye Soomaaliya haddaysan degin oo aysan xasilin oo Soomaaliya oo dhan aysan nabad noqon oo hoggaan iyo maamul siyaasadeed oo hufan oo xaqiijiya deganaansho siyaasadeed iyo amni haddaan la helin marka shaqada badan oo aan qabanayno waxay noqonaysaa mid dhibaato la kulmi karta waxaan ilaahay ka baryaynaa in dalkeena mustaqbalka aanu rabno ilaahay uu noo sahlo inuu gaaro inuu dalkeena la mid noqdo dalalka adduunka inuu la mid noqdo in dhallinyaradeenna halkan hor fadhida iyo kuwa kale ee meelaha kale ee Soomaaliya joogta ay noqdaan kuwa ku raaxaysta dal ammaan ah oo dhaqaale leh oo karaamo iyo sharaf leh oo madax bannaan ilaahay inuu taas noo suurtageliyo aad iyo aad baad mahadsantihiin hadalkayga intaasaan ku koobayaa lianna waxaan filaynaa inaad su'aalo adag na weydiin doontaan su'aalahaasaan ku jawaabaa wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن سلام يا أمان مدنياش المصاب وضي بروفيسور عبدالولي الشيخ أحمد سؤال عن قباوها ويسيدة مرة بروحان تلمانا لبعتنا هيستا يماشي وحي قضيه مرة بروحان كعلنا وكل واغنا ماشي كنتو كتبتو ما جيتا محا كل واغنا مرنا يعني ماشي سنة ماشي كنتو كتبتو وقبل تلنا لبعتنا يسابوا عنا مرة بروحان تفايدر لنا our problem but we don't know our solution that's the problem سأشياء وديني يا وحوية محيطة عقبات كفلا إن قفي عقب وضغطه حتى تجمعين وأن كبتوا ولي 4.5 ورتو أو عقودوا رانا يوم hadda meesha laga shaqeeyo runtii oo asxaabta dhibaatada haysta waxa weeye dalkeen umaynaan baran maaragtay federaal iyo maaragtay umaynaan baran dhibkiisu leeyahay waa ognahay laakiin haddii la rabo in la sameeyo oo daacad la yahay waxba waa la sameyn lahaa laakiin arrimihii xisbiyada horta meesha waa yaala waa la keenayaa baarlamaanka haddii rabbi sida ugu dhaqsaha badan asxaab haddaan la helin hal qof iyo hal lama gaarayo halkaan madaxda fadhida ra'iisul wasaare Cabdiweli dee haddaad idinku u taqaaneen maaragtay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya ahaa anigu xildhibaanu hadda wuxuu yahay gudoomiyahayga waa gudoomiyaha midnimada iyo maadaasha dimuqraadiyadda haddana wuxuu ka tirsanaa xildhibaanada waxaan ka mid ahayn 80kii xildhibaan iyo golihii wasiirada oo la baxay badbaado qaran marka waftigan madaxdu hogaaminaysa ra'iisul wasaare Cabdiweli iyo doctor Cabdiraxmaan iyo xogayaha guud ee xisbiga doctor Cali Xareed intuba waxay meel kasta ordayeen u taagan yihiin dan ay leeyihiin uma socdaan waxay u socdaan dantii Soomaaliya oo baabaaday arkay meeshay ku socdaan idinka ardadaha marka waxa la idinka rabaa inaad meel kasta aad gacan ku siisaan oo Soomaaliya u istaagtaan anigu xildhibaan federaal baan ahay idinka idin matala shacabka matala marka waxyaabo badan oo aan ayagu sheegi karin baan rabaa anigu inaan sheego oo aad u muhiimsan
waxaa weeye Soomaaliya ha ka indhaqarsanina dhowr iyo 20 sano burbur iyo dhibaatay ku jirtay meesha Soomaaliya maanta ay maraysay 4 sano ka hor iyo maanta meesha marayso shacabka Soomaaliyeed waa aragtay maanta meel isu fayo lama arko qori iyo xabad baa la soo haystaa waxa keenayo ugu wacan waxa weeye waa hoggaan xumada dalka ka jirta ugu muhiimada dalka ka jirta aniga haddaan muxuu ahaa waxaan jecelahay xaqiiqda inaan ka hadlo qofka runta aan taabsiyo kitaab baan maray inaan been sheego iraado waxaana saxsan waxaana waxa fiican waxa khaldan waxa saxsan in la sheego waxa la sheego horta taas waa inaad ogaataan dalka marti kama tiidin hoggaankii Soomaaliya berri baa tihin wiil iyo gabar u istaaga Soomaaliya maanta badbaadi u baahantay intii naasana badbaadin kara halka mid oo idin ka codsanaya waxa weeye ardadeennii waxay baratay muxuu ahaa dibad iyo dhoof iyo meel ilaahay qayl u keeyay ardooyinkii scholarship la siiyay oo jaamacadaha la siiyay gid Yurub bay dhoobayeen gidaaraday fadhiya idinkana han badan baa idinku jiro waxaan malahayaa meelahaas inta tageen oo maaragtay hadee dalkooda dhaldhalaalka samaysto saraha dheereer iyo xogaha meelaha quruxda badan bay inta isku sawiraan bay yiraahdaan bay idin soo diraan oo Facebook iyo ogna Facebook iyo internetka idinku soo diraan waxay wallahi gurigaan degan halkaan degan wax ka jira male dhaldhalaalka beenta raacina dalkeena wax u barta dalkeena dhista aniga dhabta oo dalka ku jirto anigu hadda 2 bilood ka hor Yurub iyo Jarmal meel badan baan soo maray ardadii wax baratay oo Itoobiya iyo Kenya iyo Turkiya meel wax barashada loogu diray gidaarada wada dhooban yihiin wax ay hayaan male marka taasna ha sameeyna dalkeena wax u barto sida dhirta uga barteen beeraha u beera una istaaga siyaasadda Soomaaliya meesha dhulkaad ku nooshiina Puntland waxaan aad ugu mahadnaqayaa nabadgelyada iyo ammaanka ka jira madaxda dawladda iyo sidoo uga qayb qaadatay